السلام عليكم دمان أصحابتي ميل بوجوكتان أيضاً إذن سلامة إن وصحبكينا يوكي وانت وحان كهالي ربا برنامج ير بالصرق اسكولا دعين سوشيال ميديا أنا أدلو هذا الهاي أسبوعاً sidaad ogtihiin waxaa is haystay oo isku dhigan laba fanaan oo aad u waaweyn walibana aad u cod maclabaduruba balse heesku halees waa kulleyna waxaa loogu daray halkii heesba waxaa loogu talagalay inuu hal fanaan uu ku luuqeeyo marka sidaan dareemeyno haddaan nahay dhegeystayaasha in waxaa jira khilaaf amba waxbaa isdaba maray in marka laakiin haddii caruur yaryar oo isla dhashay in hadday isqabtaan tusaale ahaan laba joogo kabaha loo soo iibiyaba markaasay hal kob ka mid hadday iskula dhigaan oo yiraahdaan kobtaan anigaa leh qofkii kala saari lahaa waa waalidiinta weeye gaar ahaan hooyada kala saarto marka fanaaniintan hadday isqabtaan waxaa kala saari kara abwaankii heeska soo sameeyay haddii bahay hees isku qabtaan oo ay hees isku dagaalaan marka waxaan idiin wadaa abwaankii heeska sameeyay heesku waa heeskii jawi caashaq abuu janno ii ahaaday hawn mayaado waa sidaas aniga aad ma xasuusta waa dhegeysta kolley bal ila soo qiimeeya videogan waa abwaankii oo ka hadlayo qofka heeska originalkiisa leh iyo waxyaabo badan oo ka hadlaa ku qotomeen saddexdaas oo kala ah waa midda koobaade inuu dayax noqday qof hal abuurkiisii khiyaamaya oo anigana si ila shaqeynaya cidda kalena si ula shaqeynaya oo heestii jamiila ahayd ka dhigaya farxiya isagoona aniga ifafaala iyo dareen iga siineen arinka waxaan ka leeyahay qofka ma aragtay hadduu ku khiyaamayo oo dadna aaminto taas waa daacadnimadaada laakiin markaad ogaatay inuu ku khiyaamayo haddaad wada shaqeyntii sii wadato barteedii ka sii wadato taasi waa doqonnimadaada qodobka intaa baan ku dhaafayaa ninkaas oo khiyaamay waa qodobka labaad wuxuu ahaa inaanay dhawduba u dhacsanayn dayax erayada aanu fahmayn waxa aan anigu curinayana heestii horeeyeen siiyey bay ahayd tii labaadeen siiyey walaac bay ahayd walaac wuxuu qaaday isaga oo maad aragtay qoslaya heesta odhanaysa adoo la xashii wadaan wadnaha kugu sii hayaa adoo welwel la rabaan waxnaanana kuu sidaa markaad cadawii wadhaan nacabka kaa waabiyaa adoo waran ii sitaana anigu wehelkaadaya adooni wanaajinayn ayaad igu weyntaho haddaad islahayd waxyeel walaac kuma badi karo wad baa nolol moodayaa heeska sidaa odhanayuu dayax isagoo qoslaya qaaday kaaga darane ilaa iyo iminka wuxuu ka qaadaa aroosyada oo waa hees damaashaad iyo aroos buu ka dhigay heestaa qiirada iyo dareen kale taasina waxay caddaynaysaa inaanay dareensanayn una fahmi karin erayadan macnahooga taa markaan arkayna waxaan go'aansaday inuu heestan meel aanu qalmayn la mari doono sidaa daraaddeed aan ka wareejiyo waa qodobka saddexaadna wuxuu yahay dayax tallaabo walba uu ila socodsiin jiray heesahaygii hore aan siiyey waa maryan iyo walaac baa ku jira miidhiyaha oon siiyey walow uuna maryan xuquuqdaydii uuna dhowrin oo una ku soo xusin channelkiisa iyadoo ku soo baxday haddana
labadaa heesee hore waan kala warqabay codka markii laga qabtay waan ogaa waan ka falcelin jiray sidan dha iyo sidan dha baan odhan jiray laakiin tan lamaaban ogeynba wuxuu ka soo daba heesay uu iska abaabushay uu iska soo qaaday markii Marwaan soo heesay sidaa daraadeed bulshaweynta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa heeska originalkiisa anigoo hal abuurkiisa sameeyay waxaan u aqoonsanahay Marwaan Yare walaalkay Dayaxna waan ku ixtiraamayaa inuu soo qaaday Allah sharfaan aan leeyahay laakiin originalka heeskaasi waa Marwaan Yare ugu dambeyntii labadaba waxaan kula talinayaa u soo jeedinayaa inay khilaafka inta ku dhameeyaan dad walaalo oo wada dhashay baynu nahay dad dhiig iyo dhalasha midaysay baynu nahay dad diin iyo af iyo dhaqan mideeyay baynu nahay sida daraadeed isqa qabsigeena iyo murankeenu dan uma aha bulshada ina fiirsanaysa waxaan idinku boorinayaa wax gudaha lagu xalin kara dibadda u soo saarina waxa kaloon idinku boorinayaa oo waliba si gaar ah Dayax ula sii hadlayaa ma aha in magacaaga oo weynaaday tayada suugaantaada waxaasi kibirku geliyaan oo gaadha heer aad xusi weydo qofka kale uu soo qaaday leedo tiraado fanaankii yaraa ba kan sameeyay ma haboona waana ka waaninayaa nin walaalkaya tahay in la iska madaragtay booriyo waxyaabaha khaldana waa wax meesha yaala haddaan qaldamo saadii qaban lahayd baan aanu haddaad qaldanto ku qabanaya nin saaxiibka ayaan ahay taasaan ku leeyahay khilaafkuna inta ku dhamaado walaalaatihiin Marwaan anigu waan qabtay oo u jawaabin baan ku yiri ninka Dayax waa nin calool fiican waa nin wanaagsan hadduu de wax tabanayo inaga soo gaadhayna de waan xalinaynaa laakiin u jawaabin baan ku yiri waanu imaqlay uu iga yeelay baaqayga ahaa inaanu u jawaabin umuna jawaabin runtii ixtiraamka iyo wada dhalashada iyo gobonimaduna taasi ku jirtaa intaasaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amayo yaa qofka hadduu ku qiyaamayo oo aadna aaminto taas waa daacadnimadaad weyre laakiin markii aad ogaato in uu ku qiyaamayo haddaad wada shaqaynta sii wadato oo aad barteedii ka sii wadato taasi waa doqonnimada iyo salaam hadal abwaan waay wakaas kulley waa dawteen abwaanka marka abwaanku wuxuu si cad u sheegay heeska originalkiisa inuu leeyahay Marwaan balse waay Dayaxna oo ku xishmeynaya soo qaaditaanka asigana soo qaaday balse uu iska soo qaado yiri heeskan xilli hore la sameeyay marka balse originalkiisa Marwaan Yare iskale marka shacabku inay sidaas ogaadaan abwaanku uu ka jaahil bixiyo sidaan dareemayno marka wax walbana bilow iyo dhamaad ay leeyihiin heeskaas iyo buuqay ka tagnaa inuu soo ilaaday aan rajeynaa in barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynaa dhammaan asxaabteeda aad idin salaama jirin adduunka ka halo jirada ka daboho wimaaya baby taqajalka aqooda maaya maxanay idinka la rahat samaya ka halo taadila jirin adduunka ka halo jirada ka daboho wimaaya baby taqajalka aqooda maaya maxanay idinka la rahat